madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa ay shaaciyeen inay ku heshiiyeen in xiriirka labada dal dib loo soo celiyo isla markaana iskaashi iyo wada shaqayn labada dal ay dhaxmarto. We go back to normality and wuxuu yiri xiriirkeena caadi ayaan u soo celinay. walaalaheen Soomaaliyeed waxay fiisaha ka heli doonaan garoonka diyaaradaha markay yimaadaan. dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in wada hadallada uu la yeeshay madaxweynaha Kenya iyo sidoo kale qodobada ay ku heshiiyeen aysan marnaba saameyn ku yeelan doonin kiiska badda ee hor yaalla maxkamadda ICJ. Our common interest, and that's why I have to assure that the ICJ issue will not affect. waxaa jira waxyaabo badan oo labadeena dal ay wadaagaan oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo ah. arrinta dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ah taala ma saameyn doonto xiriirkeena laba geesoodka ah. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan waxa uu ku sugnaa magaalada Nairobi isagoo ka qayb galayay shir caalami ah oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay. waxaa sidoo kale jiray kulamo hoose oo u socday isaga iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta.